maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin yar oo bariyahan aad social media-hana uga socotay aniguna aan xog badan ka hayo. Arrintaa horta intii aana u gelin oo ah arrintii ninkii caare sanaag iska soo galay odayga caare sanaag iska yimi intaana arrintiisa markii hore aanan gelin waxaan rabaa inaan galo oo aan ka hadlo oo maanta halkan aan ka sheego wixii aan ka ognahay ninka caare ah gobolka sanaag falqalatada iyo qalalaasaha ka wada dadkaas oo aan lagu aqoon dhibaato 20 sano ama dhowr 20 sano ee dalku burbursanaana wax dhiba aysan gobolka ka jirin. Horta intii aan ninka iyo hawshiisa sanaag u gelin waxaan rabaa inaan ka hadlo oo aan tacsi la wadaago ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland geeridii naxdinta lahayd foosha xumayd ninkii birmageedada ahaa loo geystay Allah u naxariistay oo si gaar ah anagu aan saaxiib u ahayn Suldaan Bashiir Muuse Konte oo masaajidkii salaadii jimcaha isagoo ku jira oo safka hore fadhiya ina argagixisa ah oo cadawga Soomaaliyeed ah uu ku toogtay halka ku toogtay arrintaas arrin fool xun bay ahayd si gaar ah tacsi ugu diraya qoyskii iyo qaraabadii uu ka tagay caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo dhammaan intii eheladiisa ahayd si guudna Soomaaliya oo dhan buu ninkaas ka baxay labeentii Soomaaliya ayuu ahaa laf dhabartii Soomaaliya ayuu ahaa Soomaaliya markay burburtay simadu waxay ahaayeen marjac loo noqdo ummadan isku haya especially dadka gobolada Puntland dega kaalin weyn bay anaga oodsamada noogu jiraan conflict-ga xaliyaan ilaa iyo Cadda Muuse Cabdullaahi labadaba Ilaahay ha u naxariistay marka ay dirireen UN baan xalin walaa wadamada deriskan xalin isimadayada ayaa xaliyay oo arinta garwadeen ka ahaa doorashooyinka markay dhacayaan xifiltanka siyaasiyiinta iyo conflict-ga iyaga xaliya anigu waxa uu arkaa isimada Soomaalidu inay yihiin dawladda saxda ah ee shaqeynaysa marka ninkii raba inuu anaga indhaha qabto waa ninka anaga isinka iyaga dila ama nin caalim oo ummadda wuxuu sheegay dila geeridaas maanta aad bay ii taabatay waana xaq geeridu Ilaahay baa quraankiisa inuu ku sheegay qofku waqtigiisa ma dhaafayo qof kasta ajashiisa xilli baa la qoray isagoo candhuufo iyo dhiiga ayaa la sheegay oo la qoray meesha uu ku dhiman doono waxa uu cunayo iyo sida noloshiisu ahaanayso taa kama xumi oo aniga ma garanay xilliga ay tayda u iman doonto kuwa aan la hadlayaan garanay xilliga ay tooda u iman doonto laakiin waxaan aad uga walwalsanahay oo wax aan aad uga xumahay ah qaabkii uu ninka odayga ahay u geeriyooday waxayd waxaanan aqbali karayn Puntland 20 sano bay jirtay 20 ka sano intii ay jirtay waxyaalaha dhacaya looma eedeyn karo dawladda inta badan waxyaalaha dhacaya shacabka ayaan anigu eeda saaraa sababtoo waxa weeye dawladdu individual uma ilaalin karto 400 milyan baa meesha ku nool dadka inta la eego dhan ee Soomaaliyeed 2 meelood 3 meelood marka loo qaybiyo ama 4 meelood marka loo qaybiyo 3 meelood waxay ku nool yihiin Puntland dadka inta leeg hadii aan niraahno qof kasta amnigiisa dawladda sugaysa qof kasta amnigiisa waa la ilaalinaya adeeryaal gacaliya taas ma shaqeynayso waxa weeye dawladdu constitution-ku si kale oo weyn buu u shaqeynaya wixii caam oo guud ama wixii xuduudaha ku soo xadgudba ama wixii loo baahan yahay dawladdu inay wax ka qabato ama masiibooyin dhaca disaster oo kale Ilaahay uu nagu keenay laakiin hadina qof kasta amnigiisa la dilo dawladdan saarayna macquul ma noqoso war dawladdu Soomaaliya ayaa oo intaas oo malaayiin lagu bixinayo oo malaayiin lacag ay doonars ku bixinayaan la dagaalanka argixisada ayaa wax ka qaban kar weydeen nimankan Mareykanka aanu ku noolahay baa maalin kasta cirka ka duqeynaya oo leeyahay waan si laba jibaare waa hay'ad caalami ah oo adduunka dhan ula dirirayo Puntland oo 20 sano jirtay dhaqaalaheeda aan ognahay say wax aan ognahay kala qaybsanaan dadka aan ognahay dadkooda aanu bislayn aan ognahay waxba kama qaban karaan arrintaas hadii aanay shacabku la shaqeyn shacabku markay dawladda la shaqeeyaan arrinta waxba laga qaban karaa laakiin shacabkii hadiina dawladda la shaqeynayeenba oo mid reer bariya uu ninkan guri ka kireynayo adeero gacaliyo sidee looga guuleysanaya lagama guuleysan karayo ninka maanta al-shabaabka ah ama daacishka ah ee intuu wax dilo guri boosaas abu degan yahay guri buu kireystay ninku cirka kama soo dhicin ama reer Puntland ha ahaado ama Baydhabo ka yimaado ama Hargeysa ka yimaado anigu ma oranayo specific siri buu ka yimi laakiin meeshuu doono Soomaaliya ka yimaado nimanka argixisada horta cadow weeye qabiil la male laakiin inta badan koonfurta Soomaaliya Puntland uga yimaadaan marka ninka koonfurta Soomaaliya markuu ka imanayo meesha uu imanayo waa Puntland boosaaso qorshuu leeyahay
hotel buu degayaa ninka hotelka degan hadduu ninka ka shakiyo oo dhaqdhaqaaqiisa oo arko dawladda uma soo sheegayo xitaa hadduu og yahay uma soo sheegayo waxa weeye nationalism ma dadkii damirkii baa ka dhintay hadduu oran lahaa war dawladay ninka anigu waa ka shakiyay hala baaro haddii wax lagu waayo ninka ayaan la dulmin hala sii daayo dawladdu way baaraysaa investigation ba ku sameeyay inay sii deynayso maanta wixii meesha ka dhacay waxay ahayd ilhaano xun bay ahayd hal gaadho oo 3F banaanka ku yaale nin xildhibaan masaajidku ku tukanayay oo waa joogay oo ciidan buu watay ninka maxuunka ilaahay u naxariistay ilaalu watay hadda baleega nin taliya Puntland ka oo meel haysta anu magaciisa ma garanaya isaguna meeshu joogay almost ilaa dhowr iyo 30 ciidana haddaan been sheegin banaanka taagnaayeen dadka inta gudaha joogay boqolkiiba haddaan aan celceliyo 30 kamida baaskoorada inay siteen baa laga yaabaa dadka Puntland oo iska hobaysan ninkaasu inuu suspect yahay waa la ogaa 40 jeer buu kacay oo suldaanka dul yimi aniga nin masaajidka joogay oo dhinac fadhiyo aan rabay magaciisa inaan sheego sabab amniga awgiisa ayaa ii warramo soo wacay waxa weeye suspect buu ahaa suldaanka laftigiisu maanta hadduu noolaan lahaa waxaan hubaa inuu oran lahaa ninka waan ka shakiyay hadduu dhaawac ninkaas gaadhi lahaa laakiin tii lahayd baa sababta suldaanku inuu dhinaciisa fadhiyo buu la faqay oo u sheegay inuu shakiyay ninkaas dhowr jeer buu suldaanka dhinac yimi suldaanku inuu baaskoor ninku u xunay buu arkay ma garan karayo laakiin waxaan ogahay ninkaas inuu masaajidka ka ahaa nin regular uga shaqeeya oo marka dadka u khidmeeya oo kutubta ururiya oo meelahiisa ma taqaanaa u jooga dadka aad xitaa hadii ay arintaas beenowdo waana soo qoray anigu sheekada oo ninkaas aanu ahayn nin masaajidka laga yaqaan intii uu wareegayo oo dhan dadku ay arkayeen waxa la sheegay aniga banaanka intuu u baxay oo macaawis markii hore khamiis buu sitay macaawis banaanka intuu u baxay inuu iska soo bedelay dharkii uu sitay oo James iyo ma taqaanaa funaanad yar oo Adidas ku qorantay oo soo qaatay markuu falka geysanay markii hore laakiin khamiis iyo wuxuu sitay iyo macaawis ayuu sitay markuu tibtooronay marka waxa weeye ilmaade rayaalow yaana dulinimo ahayn 2,000 oo qof in ka badan oo masaajidka ku tukanaysay in ay ninka qaban kari waayaan wax dulinimo yaana ahayn oo ay sheegi kari waayeen oo ilaahay hadda qof xitaa yiraahdo sumadii saas oo aanan hayn oo aan dawladii la hadalay war hadii uu cala aqal u badato hal qof baa dhiman lahaa ama 2 qof kaba suuqa 3 qof inay meesha ku dhiman lahayd maanta imisa qof la badbaadin lahaa toosnas biibo la kala badbaadin lahaa oo ninkaas uu dhibaato iyo jaaifo u waday liis baa nimankan isaga qoran anigu waxyaalaha had iyo jeer ka hadlo waxa kamid ah ninka criminalska ee nimanka terrorista marka la qabanayo dawladaha caalamka inta badan kuma degdega inay dilaan sababta waxay rabaan qofka markay qabtaan inay information ka helaan how many people kala la sii badbaadinaya ma rabaan qofka xitaa inay marka hore qodha ka guuyo sababta xog badan baa laga helaya waxa weeye ninka maanta hadii la qaban lahaa information badan baa laga heli lahaa cidii soo dirtay waxa uu ninkan u dilay yaa ninkan ku xiga oo kale oo idin qorshaysan waxa sidoo baa la ogaan yaa idin la shaqeynaya hagaad lacagta ka heshaan hagaad deganeeyeen ku badan reer Puntland laga yaabaa inay maanta ku farxayaan ninkaas inuu cararo sababta hadii la qaban lahaa gurigu deganaan la cid ka kareysay baabuurkii uu watay uu meesha ku yimi baaskoolada meesha ka soo iibsaday cidna ninkan hoosta kareysay ninkan waxa laga yaabaa inaan Puntland u dhalanba anigu maanta intaan tago meesha la yaabo Burco ama Hargeysa ama Muqdisho kaba soo qaad kalkacayada 2 talaabo ii jirta waxba kama fulin karo waxa weeye anigu dad culturekeedana ma garanayo dadkeedana ma garanayo waxa weeye marka qofku hadii aanu helin qof hosta gareeya ee waxa ku saacidaya ee tilmaamaya adeer gacay waxa ma fulin karo inay been isu sheegin masaajidka ninkaas suldaanka inuu yimaado waa la ogaa oo cid kasta uu ogtay inuu ku tukado oo aniga gaasa ogtay inuu ku tukan jiray dirs baan ahayn taa anigu ma diidin oo yaa soo sheegay waxa soo sheegay iska barelay laakiin waxa weeye in ilaalintu ay dibadda istaagto ina ma taqaana xilliga oo masaajidka imanay waxa soo dhan wax laga shaqeeyay bay ahayd ninkan muddo badan baa la daba joogay ciidan buu haystay isaga oo laftiisa waa is ogaa waa nin weyn inuu jiro soo hanjeen baa laga yaabaa sababtoo ilaalu laha ilaalinaysa laakiin waxa soo dhan aniga waxa iga xun kama xumi geeridu waa xaq hadda baa oran doona fiiti wuxuu ka xun yahay in qofku dhinto oo geeridu waa xaq aniga gaasana ogeyn xilliga ay iman doonto geerida anigu waa accept gareynaya laakiin waxa nasiib darro ah in reer Puntland maalin kasta qof inta la dilo la iska dhaqaaqo meherad baa qof lagu dilaa baa la leeyahay wuu iska dhaqaaqaya dadka fadhiya 5 inay baaskoystaan baa laga yaabaa ma dilayaan ma qabanayaan hadii xitaa isku duubaan wiilka yar ee maanta ciimaamada madaxa ugu duuban tahay hadduu u bato 17 sano jiray ee caatada ah ee baaskool intuu 2,000 qof ku dhex dilay xitaa qof qaban kari waay war hadaa xitaa isku duubto wad qaban kari lahayd wax weeye adeer waxaas aan dul qaadan karnaa hadhowna dawladda eedeynaysa si Cabdullaahi din nabad wax ka qaban waay faroola la eedeyn jiray cadda la eedeynaya sidee dawlad wax uga qaban kartaa waxan idinkii ma soo sheegeen ninka reer bari ee maanta fooxiisa raba inuu ka adeegto ee maanta 1 milyan oo 200 milyan lacagta aran garaynaya ee sarflaha ah ee dukaan kale ee boyada dhoofsanaya ee xoolaha dhoofsanaya ee boosaaso jooga adeer gacaliyo ee wiilka yar ee al-shabaabka aan gurigiisa ka kareynaya ee gaarigiisa ka kareynaya sidoo raba intuu 6 subaxnimo masaajidka ugu tukado
saacad ka bacdi dukaankiisa u furto no way aakhirka isagii dhibaato u imanaysa reer bari oo nabad ku noolaan maysan inta idinku islu goynaysan waxa weeye dawladda waa inaad la shaqaysaan nationalism waa inaad noqotaan idinkaan ku dhashay ku xiran idinkaan lacag qaadan cid magaciina xiganaysa ma jirto cid in soo sheegaysa ma jirto wadamada aan kuna 300 milyan in ku leeyahay baa jooga boolisku meel kasta ma taagna dadka shaqaynaya waxa weeye dadkooda nationalism hadday ka shaqeeyaan suspect aad noqotid booliska wacayaan booliska magacooda ma xiganayo cid ku shoogtay ma garanaysidba wuu ku imanaya hadaa dambi lagu waayo waa lagu sii deynaya hadii waa lagu la kacaya qofkaana ma ogaan kartid hadhow wax yeesha laga baqaya Puntland saas laga rabaa shacabku waa inay dawladda xiriir la leeyahay anigu dib weyn hadda uma arko ama waxaan ba u arkaa waxaan waxba ka jirin ba hadaba taa la leeyo ciidamo badan inta la soo raro la keeno gaalkacayo oo afdalo iyo muxidiin lagu soo ururiyo boosaaso ayar gacaliyo dhibtay si abuurayaan wax macna ma sameynayso boosaaso ciidamo cirka ka soo dhacay kuma ma joogaan iyana la dagaalamayna al-shabaab miyaa booso gudaheeda in ka soo hortaan la dagaalamayna maya hadii dawladdu ay la dagaalami lahayd ciidan banaanka uga yimi oo sidii barigii faroole uu la dagaalamayay galgala oo kale ciidamo iska soo horjeeday ay yihiin anigu waa oran karaa marka ciidamo hala dhoob laakiin wixii ma bahaynee wixii aan la dagaalamayna hadeenaan aragba sidaan 200 ciidan booso u geynayna adeer gacay wax xamar ka taan waxa weeye dadku inay shaqaystaan bay rabaan dadka shaqooyinka ka xanibnayba dad baa laga yaabaa inay cadada iyo waxaas ay si fogeyso anigu khalad baan u arkaa in ciidamo la dhoobo waliba madaxweynahana si gaar ah fadinta lagu diraya ciidamo boosaas uma baahna la dhoobo boosaas waxay u baahan tahay intelligence in laga shaqeeyo dadka sirdoonka in la tayeeyo oo information la helo maxaynu 200 ciidan u geenaynaa meesha oo mushahar loo siinaya oo wadooyinka loo xiraya oo dadka loo dhibaya loo wareynaya wax macquul ma maanta oo kale dhacday xitaa ciidan uma baahna waxay u baahan tahay dad khabiira investigation badan ku sameeya waxaan daba gala kiiska ka warkeena anigu ogahay caaw kale boosaas banduga ka jira weyn dadka la dhibaya guriga la iska galaya dad baa la iska qabanay aan waxba garabsan waxaas wax Soomaali ku furtay weey cadaalad darro aan u arkaa waxa weeye nidaamka constitution waxa weeye qofkii dambi lagu arko dambigiisa lagu og si sax ah dambiga loo baaro si sax ah dambiga loo baaro inta ciidan la iska ururiyo guri la iska geli karo xaafad la iska beegsan karo dad la iska xidhi karo waxa weeye waa in marka hore dawladdu ay qorsheysaa waxaan si ugu hortagi lahayd shacabku eed u weyn iyaga leh shacabku aanu horena waa u sheegay eed u weyn shacabka Puntland baa iska leh dawladda lama shaqeeyaan anigu ma garanayo ma dawladda madaxweynaha markaa jooga lagu xumeeyaa reer Puntland anu waa yaabanahay ma inay meeshu burburto lagu kala yaacay rabaan anu waa yaabanahay anigu waxaan bala yaabanahay dibaatada u weyn ee boosaaso ka taagan dadka lacagta ku haysta ee ladan baa walaaqaya dadka waxaba ugu aqal xunba kuwa lacagta haysta xitaa inay cashuur bixiyaan baa laga yaabaa way ogyihiin waxaan si u socdaan sidaan ku dhab ogyihiin la socota xog badan baanu haynaa war ninka maanta lacag haysta ee boosaaso 100 dabaq ka dhistay ee markab u soo xiranayo ee raba haddana inuu hostigareeyo nin argagixiso ah ee dalka qori dabli gelinaya anigu ninka aqras wala yaabana nin baas war u go'an dalka ka sii cararayaba ma sixran yahay anigu wala yaabana waxa weeye hadaad bahantidaadii ay ukuntaadii ay ku taalo boosaaso dabina ku qabatid ma ganacsatada Puntland waa inay dawladda la shaqeeyaan waa inay lacagta cashuurta ay bixinayaan labalaadkeed mida waa inay ku bixiyaan amniga waa inay dawladda in power gareeyaan waa inay dawladda garab istaagaan war nin ganacsi aan dawladda la shaqeeyeen sidoo ganacsigiisu u mira galaya hadii dukaankaaga bamb lagu qabto oo cid wax ka iibsan weydo oo dadku wax ka iibsanay jidka loo galo sidoo ku helisa ninka xawlaada jooga hadaan dadkiiba lacag ka soo doonanayna oo bam hortaada la dhigayo xawlaada way u shaqeynaysa kan biyaha soo saaraya kuwa sharaabka soo saaraya isgaarsiinta kuwa leh ee malaayinka lacag golis iyo telecom iyo gelinaya ee aan monitor gareynaan telefoonada ee qof kasta telefoon iska siinaya ee telefoonada lacagta la isugu diray masiibada u weyn ba isgaarsiinta ka socota waxa weeye waa in qofka telefoonka markuu furan yahay la ogyahay qofka suspectiga waa in telefoonka la dhageysan kara Mareykanka la dhageysta telefoonada dadka laga shakiyo oo la baaskariyo waxa weeye waxaas oo dhan waxa loo baahan in la saxo dawladda in la iska eedeeyo ma shacabka special ganacsatada wax weyn baa ka khaldan dawladda ha eedeynina anigu ogahay kuwa hadhow qaylin doona dawladda amaanka wax ka qaban weyday Sidi Abdullaahi dan waxaan wax ka adeer Sidi Abdullaahi gana cirka kama soo dhicin waxna kama qaban karo haduu wareego wax kama qaban karo waxa weeye ninkaas waa la doortay waqti baa la doortay kaliya wuxuu wax ka qaban karaa marka dawladdu iyo shacabka wada shaqeeyaan sidoo wuxuu qaban karaa hadii ninkii maanta dilay Suldaan Bashiir Muuse intuu Masjid Mubaarak ka baxo guriga masaajidka ku xiga uu galayo oo kii guriga lahaana uu masaajid ku tukanayo si Abdullaahi bin Mucaawiya qayb ah soo wuxuu qaban karaa waxba kama qaban karo waxa weeye dawladda iyo boolisku hadii aanay wada shaqeyn booliska iyo shacabku hadii aanay wada shaqeyn wax hagaagay ma jiro weligiin saasad u wareegaysaan kiina madaxda saas loo dilayaa
kiina mataqaanaa indheer garadka asaasa loo dilayaa maanta nin weyn baa baxay Bashiir Muuse Konte nin weyn oo caqiibo leh oo Soomaali labeenteedii abuu ahaa kaalin weyn buu ku lahaa Puntland nabadeed waxaan ognahay konfliktiyo badan beelo badan oo bari isku laayay ilaa dawladii Cabdiraxmaan Faroole sida uu ninkaas uga shaqeyn jiray wuxuu ahaa nin laf dhabar u ahaa geeridiisa aad iyo aad bay ii taabatay waxa weeye wuxuu ahaa dadka loo soo hirto in nabadda ka shaqeeya ee had iyo jeer u taagan oo hadda aan ognahay taa inuu konfliktiyo khilaafyadii baarlamaanka uu xalinayay ee uu joogay Garowe marka waxa weeye ilaahay baan uga baryaynaa inuu kitaabkiisa gacanta midig uga dhiibo ilaahay baan uga baryaynaa inuu iskalaadka su'aalaha u fududeeyo oo jannada firdawsi u geeyo laakiin waxa weeye dadka inta hadhay sidee loo badbaadin karayaa dadka inta hadhay sidee sidan looga badbaadin karayaa dadka inta hadhay waxa looga badbaadin karayaa wardadoo dawladda la shaqeeya wardadoo dawladda la shaqeeya war cid ku soo sheegi mayso hadda u baahanta lacag baa la idin siinaya dawladda la shaqeeya waxa aragtaan sheega war gurigiina ka kireeneen ay idin garanayn oo cirka soo dhacay war gurigiina ka kireeyo qof aad taqaaneen war gaarigiina ka iibiyo qof aad taqaaneen oo wuxuu isticmaalaya aan la aqoon war masiibooyin badan baan ognahay waxyaalaha dadka lagu baabiyo gawaarida kamid ah nin baa gaari iska iibinaya qofka uu ka iibinayo ma garanayo driver license kama hayo waraaqa kama hayo meeluu ka yahay ma garanayo muxuu ku isticmaalaya ma garanayo hadhow intuu wax saaro buu meel ku qarxinaya waxaan ognahay kuwii qarxiyay berigii UNDP da Hargeysa madaxtooyada gari jiray boosasana qarxin jiray gawaarida dadkii laga iibiyay mardama dawladda Cadam Muuse Ilaahu naxariis soo qabto way gawaarida magaalada laga dhex iibiyay waxa weeye dawladda waa inaad la shaqeysaan dadku dawladda waa inay la shaqeeyaan dadku dawladda waa inay la shaqeeyaan haddaanay dadku dawladda la shaqeyn wax hirgelaya ma jirto fariinteeda intaasan ku soo koobaya ilaa